هي بالله مقعاقة هنا دقاقا السعادة عن سياشة كيسانو بالدباتة إذن قادي كيس كسيدو دعي وحا هالكن إذن كيانا إلمها السيهين هاي وربحنت هذا كوبان بسم الله مقعيق وفرحية أحمد قاسن وكونو الحافظة حقر دير قحوتيقة waxaan ka imaanay dalka Soomaaliya Muqdisho waxaan ahay marxuumkii Soomaali lagu dilay Axmed Muqtaar Saalax xaaskiisii aan ahay waxaan haystaa 4 caruur waxa ila socda aabihiis iyo walaashiis aabihii markii la dilay wiilkiisa naxtinta oo ka naxay indhaha ayuu beelay lugihiina waa waxba kama soco karo hal saac laba saac meesha hal saac loo soconaa 3 saac oo soconaa kaadida xataa ma cisho karo waayo naxtintii wiilkiisa oo ka naxay aawadeed teeda kaleento anagii oo nala sii dilay dadkiina dilay xataa cadaalad aan la horkeenin Soomaali isay sharci oo jirin dawladda ay jirin aan la leeyahay islaantii baangada yar surka ugu dhufatay racfaan ay qaadatay kii waranka galiye racfaan baa u furnaa la leeyahay tii shidaalkii ku shubay magaalada Muqdisho geeska jooga gabadhii taraq u shiday la soo deeyay racfaan ay wada qaateen la leeyahay cadaalad dari anagii waa nala raadsanayaa waxa la leeyahay familkaas hal qof ma dhaafayna say u yihiin reer Muqtaar anagii cabsiyaan inta u imaanay 10 biryan jid ku soo jirnay muslimka lacag ay noo soo aruuriyeen aan ku soo baxnay baawur baa jid nooga soo halaabay wiil yar oo aniga sanad iyo 8 bilood ii jira xataa waraaba iga qaada rabay muslim oo ilaahay noo bixiyay halkan uu dhoomishalan ku imaanay halkii naftigiisa aan joogin xataa waan ka sii cabsanaynaa waayo Soomaali markaan dhooble aan imaanay telefoonaan wadanay telefoonaan noola soo diray waxa la yiri meel al meesha aad tagtaan waa idin kugu imaanaynaa inaan idin joogno ogaada haddii aad wadana la wadankaad gasheen inta xataa amni kuma haysano dawladda Kenya waxaan u imaanay amni inayna siiso cabsidiina haysay wax walba inaan iska ilowno ilaa hadda tuhum baan ugu jiro waa sii cabsanaynaa waad ogtihiin ilmo markuu aabahood oo nool yahay iyo markuu aabba la'aan ay tahay dhibka oo maxay ahayd tayaalo waa ogtihiin ilmo yar oo isma qadayaan ah joogan maanta hilibkayga hadii loo jarjaro iska cunaayo oo hooyada waay aanan ka seenin aan sitaa maanta aniga qofweynaan ahay maanta baayo waa ku seexan karaa laakiin caruurtan kuma seexan kari waxaan ka codsanaynaa dawladda caalamka oo dhan dal iyo dibad intii aniga fiirsanayso muuqayga intii maxay idaacad iga dhageysanayso hadii ay noqoto BBC haday muuqaal ay noqoto si islaamnimo oo islaamka oo ku jiro in noola gargaaro anagoo amnigeena ay si caadi ahayn cabsida ay nagu taagan tahay habeenkii ma seexano maalintii waan walwalnaa ilmihii sidaayad ay ku jiiftaan joorari ma haysano darxumo waxaan kor saaranahay ayagana cid agoon ah aan korsaaranahay aan ku soo degnay cidii ay ilaa hadana hayso ma sha Allah ayagana cid fiican waayo gacan ay nagu qabteen maamada 24 saac wayna soo kormeertaa xanuunkeena baahideena caafimaadkeena laakiin ilmo dad heeyo oo ilmihiina qof ku saacidayo ay sajirin dal iyo dibad ha noqoto waxaan ka codsanaynaa walaalaha dal iyo dibad hay'adaha dadkiina dhageysto iyo dadkiina fiirsanayo gargaar islaamnimo inay noo fidiyaan dawladda Kenya anaga hadda magan aan u nahay ayadaan imaanay dawladdiyan anaga aan la joognaa lamaanihii oo wadaadkayga sababtooda loo dilay ayagana hotel ay ku jiraan Soomaali waxay hadda gargaar ay haystaan malahan waayo ninkii shalay dawladdii oo la wareegtay madaxweynihii maxay ahayd la wareegeen maxay ahayd asigana waa la dilay gidoomiyihii Yariso waxa la yiraahdaa anaga ninkii dadkan shalay dadkii keeneen maanta maxay ahayd ninkii woo dhintay anaga ma bahay karnabo ilmaha waan iska soo daynaynaa cunugii hadii la soo day meel ma yaqaano cunugii cunug iska cabsanayo waayo cidana cid ka cabsan waayo anaga raadsanayso saqiirkooda 2 sano jira xataa ma dhaafeenay taagihiin wiilkan meesha wuxuu ku haysta malahan gargaar dari iyo meesha uu ku sheeganayaa uu iska cabaadooya waayo cunugii adeerkiisa hadana goobiyaal laga dhigay wuxuu suubiyo malahan naagtina way u soo gooday maahan oo naagti familkeedii cideedii ehelkeeda ugu soo gooday gabadhiina banaanku ma furi karo meeshana ugu dhaxdashay hadana naagtii meeshay ugu dhaxdashay wallaahi hotelka dib weyn ku haysto annagana waa kana wad noo jeedaan saan u rafaadsanahay dad baan korsaaraan ku nahay chief ma haysano gargaar ma haysano waxaan haysano malaha caalanka dal iyo dibad inta naga dhageysanayso adduunyadka oo dhan dadkiina dhageysto anaga gargaar bila aadanimaan u baahanahay waan cabsanoynaa